السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داوديال dhammaantiinba meel kasta oo naga daawanaysa ku soo dhawaada warbaahinta Kalshaale. Maanta martinaagu ah Cabdiweli oo kamid ah daayarta hibada kubadeed leh oo warbaahinta Kalshaale ku booqatay garoon kamid ah garoomada magaalada Buuhoodle. Haddaba waa kuma Cabdiweli. Cabdiweli waa daayar kamid ah daayarta ku nool magaalada Buuhoodle oo leh hibo kubadeed oo tayadeedu aad u sareyso. Haddaba Cabdiweli waa player ka soo baxay akademiga teamka faca weyn ee FC Golden Soweto. Cabdiweli oo haatan jooga teamkiisa Golden Soweto oo hibadiisa kubadeed aan indhaha laga qarsan karin. Waa player aad u ficil badan, xamaasadiisuna aysan ay yareyn. Cabdiweli waxa uu ka ciyaaraa positionka strikerka ama hadba sidaad u taqaanaan booska weerarka ee sagaalka. waa xirfadle tayadiisu sareyso, waa gool dhaliye shabaqa saaxiib la ah. sanadkii ugu dambeeyay waxa uu ka soo dhex muuqday heerarka kala duwan ee kubadda cagta, heerka saddexaad, ka labaad iyo kan koowaad ee magaalada Buuhoodle. Cabdiweli waxa hibada kubadeed u dheer akhlaaq iyo ixtiraam badan oo Ilaahay ku galladay. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka waxaan u mahadcelinayaa warbaahinta Kalshaale oo igu soo booqatay goobta tababarka. waxaan u mahadcelinayaa magacayguna waa Cabdiweli Axmed Xuseen. waxaan ku dhashay magaalada Buuhoodle. waxaan ciyaaro FC Golden Soweto heerka labaad, heerkaas sare dhiidan soo bilaabay. kadib waxaan soo gudbay heerka saddexaad, heerka Soorosida. markaan heerka Soorosida ku dhex jiray waxaan soo qaaday 5 koob. kadib saadaradeed waxaan ugu soo gudbay heerka labaad oo haddeertaan ku jiro heerka biida. bismillaahir rahmaanir rahiim. ugu horeyn Ilaahay baa iska mahad iska leh. inta ka bacdi waxaan aad ugu mahadcelinayaa warbaahinta Kalshaale iyo wariye Ibrahim Cabdiqaadir Jabaan sidoo dhalinyarta iyo sportiga u dhiirigelinayo oo u garab taagan yahay. maanta waxa garabkayga taagan Cabdiweli Axmed Xuseen oo ah daayar kamida jiilka u soo kacay gobolkan. waxaan kaloo aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan ahay macallinkii Cabdiweli soo gacan qabtay ee maanta heerka uu taagan yahay qayb kamida kubadiisa soo gaarsiiyay, iyadoo waliba uu yahay daayar dadaal badan oo hibo badan oo kubadeed ku duugan tahay. haddana saas oo tahay waxaan qayb lixaad ka qaatay inaan ka soo dalacsiyo marxaladda seerasi ee aan maanta u soo dalacsiyo heerka labaad. Cabdiweli insha Allah hadduu player sii joogo waxaan aaminsanahay inuu noqon doono mid kamida kuwa ugu muhiimsan ee xulka gobolka Cayn matali doona ama xulka gobolka Buuhoodle matali doona. Cabdiweli yare hadaan kubadiisa wax badan ka taataabto ama wax yar ka taataabto, Cabdiweli yare iminka kooxdan uu ka tirsan yahay Golden Soweto heerkeeda labaad. wuxuu ka yimi markii koowaad heerkeeda saddexaad, wuxuu soo dalacay heerkeeda labaad. taana kuma imaan xulasho kale ama si kale, laakiinse wuxuu kaliya daayarti la mid ka ahayd ama noociisa uu kaga soo dhex baxay ama uga soo dhex muray dadaalkiisa kubadeed. runtii Cabdiweli yare waa nin dadaal badan kana dhex muuqda rag waaweyn oo ka da'weyn in badan oo la heera ama maanta uu heerka biida ay ka wada tirsan yihiin. iyadoo ay taasi jirto wax walba waxaan oran karaa wuxuu halka ku soo gaaray dadaalkiisa iyo firfircoonidiisa iyo inay mar walba ka go'an tahay inuu heer gaaro oo kubadda heer ka gaaro. aad baan anigu ugu faraxsanahay inaan Cabdiweli tababaro ahay isagoo rag la midaba isagoo inaan yaro daayara. wuxuu ka mid yahay ragga aan ugu jecelahay teamka. waa nin akhlaaqda kubadda akhlaaq u dheertahay oo aad u adaab badan oo aad u akhlaaq badan. magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Karaama. waxaan ka mid ahay kooxda heerka koowaad ee Golden Soweto. run ahaantii Cabdiweli yare markuu igu yimaado calaamitado kale wuxuu leeyahay dadaal aad u sareysa, xirfad aad u sareysa oo aad moodaysid heerka koowaad oo kale. haddana waxaan leeyahay Cabdiweli yare dadaalkaaga halka ka sii wad iyo xirfad ahaan waxaan ku rajaynayaa guulo badan iyo horumar fiican. Cabdiweli Axmed Yuusuf, warbaahinta Kalshaale.